وتضباطكي حرية الصومالية أما أمد الصومالية أدي أهان لدلح لواتك جون أدي أهان لدكود لوليو أدي أهان لدوي لاتك جون جبوتي وحن لنا هو ماني الصومالية وحن لنا الصومالية إسرائيل هم يدودو عدو كذا هجبو وحن جلان لهن وحن هالكن نلجوج مرتقالي أو حن نلجوج كونسلر مهدي شريف أو كونسلر كموسايد وحن نلجوج MB جني لويس باولا نلجوجته marka waxaan jeclaan lahayn in si barnaamijka noogu qurux badnaado inaan isku imaano soo buuxino goobta waxaan nala joogo halkan asigana aan ugu mahad celinaa TV-ga qaranka agaasimihiisii oo la socda Yusuf Garabay asna waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantahay TV-ga qaranka waa TV mar walba na garab taagan haddana reer Manchester barnaamij walba oo Soomaaliya u qabanayna noola yimaado sida aad la socotaanba toddobaadyaddan waxay ahayn toddobaadyadii xorriyadda reer Manchester waxay doorteen maanta inay dhigtaan waxaana aad u soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed ay iskugu timid halkan iyo dadka ka baxsan ee martida ku ah waxaan la jooga marti ka timid Liverpool Bolton iyo magaalooyin kale ayagana waxaan leenahay aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynaynaa oo kaga mahad celinaynaa farxadda iyo xurriyadda aad nala qaadanaysaan waxaan jeclaan lahaa marka maadaama ay marti noo tahay Louis Paul nala joogto waqtiguna aad ugu yaryahay inaan halkan uga yeero kalmadii ku habboon ay ka tiraado idinkuna aad sacab ku soo dhaweysaan. Hello, good afternoon. What a glorious afternoon here to celebrate this fantastic anniversary of Somali independence. It's so good to see so many of you here from across Manchester. I'm just here to say a few quick things. The first is I'm really proud to be the MP for Manchester Central and Moss Side and to be the MP for such a large Somali community here in Manchester. You make me so proud because you bring such community spirit to our city. You've helped improve our education, our health. You have such aspirations for your families and for your children, and you are an inspiration to the rest of Manchester. So thank you. I'm so proud of you. I'm also really proud of the country that Somalia is becoming. It's becoming a beacon for the rest of Africa, for the rest of the world. And you must be so proud too. So we'll continue to work hard to make it the great country that we know it is and that it can be in the future. And I'm also really proud of Mahdi here, who has been an outstanding councillor for all the communities in Moss Side, but to be Manchester's first Somali councillor, we couldn't be prouder. He is absolutely the best of Somalia, the best of your community. And he should make you really proud because he speaks very strongly on behalf of the community. So I hope you have a fantastic day here today and I wish you well with all your celebrations. I think next year is a bigger celebration though. So we'll have an even bigger party next year. And that just leaves me to say, Somalia, Hanolato. Thank you very much. aad iyo aad ayuu mahadsantahay Luisi waxaan leenahay waa mahadsantahay waxaan haddana kalmateen siinaynaa konsularka Soomaaliyeed ee ugu horeeyay Manchester inuu konsul ka noqdo Mahdi Sharif inta aan aqoon hadda ha barato waa shakhsi u taagan in ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Moss Side ku nool inuu wax u qabto cid allaale cidii dan ka soo gashan uu furay albaabkiisa xilliyada uu jaaniska hay iyo meelaha uu fariisan hadda isaga inoo sheegi doono barasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim galab wanaagsan sanad guura wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed faamiliyada halka isugu yimid waan salaamayaa si gaar ah waxaan kaloo salaamayaa dadkii xafladan quruxda badan soo qaban qaabiyay oo ay ugu horeeyaan Aamina iyo Cadaay gudoomiye Axmed Dacani iyo Muna iyo dhammaan dadka kale xafladan inoo suurta galiyay maanta halkan isugu nimaadno aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan halkan maanta aan ugu dabaaldegino sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegtay markii qayb ka mid ah Soomaaliya xornimada ay qaadatay Soomaaliyana ay noqotay mid oo ay samaysatay jamhuuriyad la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maanta inaan arko dadkan quruxda badan haweenka odayaasha ciyaalka ku labisan calanka Soomaaliya runtii si markii loo eego waxayna tusinaysaa
in yididiiladii iyo hamigii iyo mataqaanaa Soomaaliya sidii ay ahayd inay runtii inay ku soo noqon karto runtii markaan halkan anigu soo socday maanta aan beerta imanaya waxaan arkay dad ilaa shalay xitaa calanka Soomaaliya ku labisan 5 sano ka hor 10 sano ka hor 20 sano ka hor waxaas ma jirin marka taasi waxay ku tusinaysaa in shucuurtii dadka Soomaaliyeed runtii ay soo noqonayso idinkaana caawa ka markhaatay inagoo dhammaan Soomaaliya oo dhan ka kooban halkan inaan isugu nimaadno ku dabaaldegno taana runtii waa idinka mahad celinayaa runtii waxaa kaloo muhiima ummad waliba waxay leedahay dhaqan waxay leedahay taariikh u gaara waxaana muhiima ummaddu meel kasta joogto taariikhdeeda iyo dhaqankeeda inay haysato inagu hadda inteenan halka joogta in badan oo waaweyn baa inagu jirta caruur baynu leenahay marka waxaa muhiima caruurteenu inay barato horta waxaynu u dabaaldegayno Soomaaliya waxay tahay taariikhdeeda haddii marka halkan aanaynu isugu imaan oo aanay calaamadan quruxda badan arag oo aanay taariikhdeena arag ma garan karaan marka taasina waa muhiim caruurteena runtii waxay u tahay wanaag bay u tahay waxaan rajaynayaa xafladani halkan inaanay ku koobnaan sanad kasta xaflad sidan oo kale ama ka qurux badan ama ka sii ballaaran inaynu samayno waana qabaa runtii inaynu samayn karno hadalkeedu ku dheerayn maayo insha Allah baashaala sanad guuro wacan khayr baan idin rajaynayaa waa idin garab istaaganahay wax allaaliya waxaad iga baahataan aniga albaabkaygu markasta waa u furan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo aan joogano insha Allah waa idinku caawinayaa marka khayr baan idin rajaynayaa sanad guuro wacan guuleysta insha Allah Soomaaliya ha noolaato aad iyo aad ayuu maasan yahay consular Mahdi waxaan halkan uga jeedaa oday rugcadaa ah ee reer Moosayid Xaaji Ibraahim Baarud waxaan leeyahay soo dhawow sida aad la socotaan Soomaaliya xilli wixii soo martay aad u adag dhibaatooyin dagaallo sokeeye qax iyo dhibaato sida aad la socotaan maanta meesha ay taagan tahay waa meel aad u wanaagsan annagu barnaamijkan uga hadli mayno siyaasad iyo barnaamij maamul goboleed iyo wax kale uga hadli mayno waxaan uga hadlaynaa Somali National Day waxaan halkan uga yeerayaa guddoomiyihii ururka ama guddigii qabanqaabadan barnaamijkan quruxda badan la soo diyaariyey waqti badan geliyey juhdi badan geliyey waxaan leeyahay Shiine Muxudiin Geedi Shadoor waxaan leeyahay ku soo dhawow stage-ka ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa salaamantiin dhammaan Soomaali weyn meel kastood ka timaadeen reer Manchester reer Bolton iyo dhammaan maxaa la dhihi jiray reer Liverpool reer Leeds anywhere in UK waa mahadsantihiin halka dhiboo taagan waxa waa Soomaalida kala durugsan ha isku soo dhawaato taas waxay noo cadeyn doontaa wadankeena saas kugu soo dhawaan doona insha Allah dadka geesaha jira please soo dhawaada barnaamijka si sharaf leh noogu socdaa insha Allah tacaala kariim waxa imaan doona odayaashii oo ka hadli doona dhaqanka iyo xilliga gumaysiga iyo sidaan gumaysiga uga baxnay ilaahay gumaysi nagu ma celiyo wadankayaga waa nabad waxaanu sugnaa insha Allah tacaala kariim waa kaliya annaga caruurteena dib ugu laabano oo dhibkaan iyo disasterka iyo dhibaatooyinkan asaga baxna insha Allah tacaala kariim waxaan rabaa si qaasatana inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan Soomaali weyn isku duuban especially hooyooyinka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin thank you very much for your support without you guys wax noo hagaagi lahaa male raggeenana ayakana waa mahadsan yihiin thank you very much aad iyo aad u maasantahay Shiilo waxaana la jooga marti culus oo nooga timid Sheffield waqti dheerna soo galiyay mar walbana noo yimaada waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan Axmed Gurey oo aan leeyahay stage-ka kalmateenkii ku aadanaa maalmaha xurriyadda Soomaaliya sacabkiina ma maqlo sacabka بسم الله الرحمن الرحيم وتا آدي أيضا ما تسنتين تدكي سوق بقابي حفلة آد وقروح ضبضان خاصة هاوينك بريها بوحا حفلة رمتي هرموت كاها هاوينك الصومالية دي غير ما جسا آدي أياد كما علنية وحن كلون سلامة يا أضياشا اللي يرضى رمتي وحن وواحد النوع عصب xaflado noocan loo dhigo quruxdaan loo wanaagaan loo wadaniyadu ka muuqato hore baana lahaan jirin balse waxaan rabaa 3 kelmadood oo yar maalinta xorriyadda inaan ka iraahdo 59 sano ka hor ayaa calankaas aad wada lulaysaan ciidda Soomaaliya laga taagay ha ugu horeyso magaalada Hargeysa 26 Juun waxa ku xigtay مقدشة
kowdii Juulaay oo ahayd maalintii saan cadaalihii Talyaaniga koonfurta Soomaaliya lagala wareegay isla markaasna ahayd maalintii midnimada runtii calankaani macno ballaaran ayuu xambaarsan yahay midabkiisa iyo xidigta shanta gees ee dhexda uga taalla calankan keenistiisu sahal kuma imaan baryana kuma imaan nalalmana siine xoog ayaa lagu keenay dad Soomaaliyeed ayaa u soo dhintay calankan halgan dheeraa loo baray oo runtii maal iyo hadday ahaan lahayd muruq ba lagu bixiyey imaatinkii ama keenistii calankan haddaan hadda gadaal wax yar u milacsanno 59 sano ee na soo dhaaftay runtii sidii dadka halka iga horreeyay ay u sheegeen aafooyin badan baa gaaray dagaal sokeeyaa la soo maray si kastaba ha ahaatee maanta meesha aan taagannahay run haddaan idiin sheego gobonnimadu waa dhaawacanta midnimaduna waa dhaawacanta waxay runtii u baahan yihiin hawl aad iyo aad u badan in laga qabto mustaqbil ummadda Soomaaliyeedna loo bayaaniyo ayay u baahan tahay isu imaatinkiinaanuna runtii waxaan aaminsanahay inuu ka turjumayo rabitaanka dadka Soomaaliyeed wuxuu ka turjumayaa meesha la rabo Soomaali ama ay astaahesho in la geeyo wuxuu ka turjumayaa runtii jacaylka xataa Soomaalida dhexdeeda ah inaanan jacaylkii dhiman ee uu noqon doono wax soo noolaada runtiina hawshaas waa hawl u taalla ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogto dhaawaca iyo nabarka gaaray midnimada iyo dawladnimadana loo baahan yahay in isu tag iyo isu tanaasul iyo qalbi xaaran dib loogu soo celiyo aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa waxaan maanta runtii halkan ku soo gabagabayo asbuucii xorriyadda oo damaashaad fara badan la soo maray loo soo xafladeeyay maalintii 26 Juun 27 Juun kowdii Juulaay waxaan runtii aad iyo aad aan rajaynayaa maalmaha kamida inaan maalintii Soomaali galbeed iyo tii NFD ay ku soo biiri doonaan riyadii awoowayaasheen ee ahayd ee shanta gees ee calanka ku yaalla inay rubowdo maalin noqotaba marka waan idin mahad celinayaa waxaan idin rajaynayaa xafladdu saa u sii socoto waa bilow haddeertaan insha Allah tacaala calankaas oo Soomaaliya dhul babanaya oo bahallada yaryare ee hadda awoormay ka sareeya in Ilaahay keeno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي هذا يوم أسيهاي مرتدو فرق ما قدنا آدو بدنيهن هذا نوحنا للجوجا MBga حافظة قرطن لنا عاسي long side يدا نفتر كذا سومالي بدن بعد دكان سومالي ده حوجه ده هذا رير موسايد لكن سمال والبا أو جريد مانشستر ويدقين مرك ما دام MBga سونا للجوجا سكان وحنا لنا رير قرطن يدا كلا long side دكان يهابرتان وحنا ويرا يا MB أفسل وحنا لا stage كسر welcome to the stage. Assalamu alaikum. Are you having a good time? Happy Independence Day from me as well. And of course, he will say that, won't he? Happy Independence Day, guys. I am absolutely proud to be here. Proud to be here with our counselor, who is the first. I will have many more. And he can't be just counselor. He needs to move up. Now, I'm actually, it's wonderful to see our brothers and sisters being here in this. Allah is smiling at you with such a lovely weather as well. Come on, make some noise then.
And I'm also really proud of the work that's being done here by all of you, your community. All of us working together makes Manchester a great place. So we're in a beautiful park, celebrating a beautiful day. And I'm also happy that things are turning around in Somalia. We are getting a government which is trying to make a difference. That's what we need. We need peace. We need prosperity. We need progress. So everybody can have a good time. So keep up the good work. And together we're going to do the slogan now. Come on. Soomaaliya Somalia. ha noolaato Hana. ha noolaato. Hana Lato. thank you very much kaasi wuxuu ahaa afsal oo ah MB-ga xaafadda Gorton iyo dhinacaas waxaan jeclaan lahaa waxaana la jooga dhalinyaro aad isdaha iyo dhaqanka ugu dheereeya barbaarta gaashan man aan u bixinay waxaan jeclaan lahaa iyagana inay sii diyaariyaan waxaan noo soo socota fanaanadeena weyneed xaawakiin barnaamijku intan wuu ka sii ballaaran doonaa si fiican baan u baashaali doonaa insha Allah waxaana la jooga odayaal Soomaaliyeed oo reer Manchester ah oo taariikhdan u soo taagnaa dalkii iyo dadkiina u soo shaqeeyay waxaan jeclaan lahaa hadda inaan u yeero adan Cabdi Xuseen oo taariikhda inooga shaqeyn doona adan Cabdi Xuseen waxaan leeyahay halkan soo istaag munaasabadan qaaliga ah ee aanu maanta halkan u joogno 19 guuradii ka soo wareegtay gobolada Koonfureed ee ka xuroobay Talyaaniga iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed oo labadii gobol ee ku heshiiyay tii waqooyi iyo kii koonfur inay mid noqdaan markii la yiraahdo wiiga markaad maqashaan wiiga xorriyadda waxa weeyaan 26 June 26 oo magaalada Hargeysa laga sulay calankan hadda aad haysataan maalintaas oo ugu qiimo weyn maartay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya waayo waa markii ugu horeysay oo calanka Soomaaliya laga sulay halkaas oo dhul Soomaaliyeed oo xor laga sulay weey waxa ku xigay 1 July oo iyaduna ahayd midowgii muxuu ahaa Soomaaliya iyo gobolada koonfur ee ka xoroobay Talyaaniga waxa ku xigay 27 oo ah maalinta Djibouti ay xorowday iyaduna waa ogtiin Djibouti waxa ku xisaaban tahay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya ayay ku jirtaa marka dadkii la yaryar waxaan ogaanaynaa inaad saas u ogaataan oo xasuusataan konfiliya sagaal guurada ka soo wareegtay maalinta xorriyadda waxaa aniga sharaf ii ah inaan shaqada dawladda aan soo galay 1960 bishii Juun 12 ilaa yoomana haadana waa joogay waa dhex taagnaa marka waxyaabo badan marxalado badan baa dalku soo maray marxaladaha uu dalku soo maray wax la xisaabi kara maaha buugaag badan laga buuxin karaa hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed waxay tahay ummad karti badan oo waxay tahay ummad muxuu ahaay gegsi badan ummad waxay tahay muxuu ahaay dhibaatada u dulqaata ayay tahay sidaas darteed baan hadda muxuu ahaay aan arrinteenu dhinac kastay soo martaba ay hadda aad u wanaagsan tahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo marka ugu dambaysa hadda Soomaaliya weligeed waa khilaaf uu jiri jiray laakiin khilaafka hadda maanta dhex yaalla ma ahan mid sahlan ma aha waxaa la arki jiray Soomaalida muxuu ahaay taariikhdeedu waxay tahay haddii ayada khilaaf dhex jiro haddii meel kale laga soo handado ama laga soo weeraro xagga dhaqaalaha ama xagga amniga laga soo galo waa midoobi jirtay Soomaalidu waa isku yaaci jirtay waxay xumaan oo yaala dhexdooda inta meel iska dhigaan ayay muxuu ahaay ay u soo wada jeesan jireen cadawgooda
hadda waxaad arkaysaa kala qaybsanaan badan baa jirta taas waxaan barkaynaa ilaahay inuu dadkeenna soomaaliyeed qulubtooda isku soo jeediyo oo waxa dhex yaalla ay isku talasulaan oo ay isku gartaan oo ay hal mowqif wada qaataan waxaan idiin sheegayaa kelmadda keliya ma ilowdeen ee ahayd kanu galbay ku kala mooyeen waxay ku timid waxa weeye midnimada soomaaliya ku timid cid gooni u keentay ma jirto gobol gooni u keenay ma jiro waxa weeyaan kenyada hadda maanta annaga noo dardaar wargelinaysa oo dhulka anagii lagu haysata oo bad iyo beriba sheeganaysa soo maahan qaar annaga ka mid ahaa muxuu ahay la jira oo muxuu ahay jooga taas waxa weeye nasiib darro maanta aan taagannahay wey waxaan xasuustaa anigu aan koobjoog u ahaa dagaalkii 64 markii Ethiopia anagu aan dagaalanay ma ahan wax laga sheego meediya laakiin waa idiin sheegayaa jiilkiina yar oo aan muxuu ahay aan la socon waxaas marka kenyadan hadda maanta la canshuuraysa oo lehaysa wax walba amarada lagu soo rogaysa waxaa lacday dagaalkii 74 baalkii 64 aan ilaaho 77 in aan xadkeeda marnay oo ciidamadii oo dagaalka galayay inaan dhex marnay oo aan iska dhex saqnay oo ila saalan loo fiiro marka haddana maantana meeshaan marayna waa arkaynaa waxaan aan idiin sheegayaa oon idula kaftamayaa anigu maalintaas aan shaqada soo galay 1960 maxaa ahaday 12 juun ma sheegayo markaas intaas sanadaydu ahayd sanadaydu intaas ma sheegayo laakiin ka soo xisaabsan ku dar intaas 59 sano ka soo wareegtay alxamdulillah waxaa cumrigaa ilaahay ii barakeeyey intaan ogahay oo aan arkay aan soo maray oo dhimatay lama xisaabi karo laakiin anna waktigaygaan sugayaa waxaan idin leeyahay marka munaasabadan hadda xooggeeda waxa weeyaan waa dumar weeye dumarka soomaaliyeed markii burburku dhacayna iyadaa dalka nabadgelida iyadaa muxuu ahay dumar baa lagu baxsaday maantana waad arkaysaan iyada muxuu ahay waxaa ka soo qayb galay dadka ka soo qayb galay waxa way u badan yihiin dumar bay u badan yihiin dumarku waa mahadsan yihiin waa wadaniyiin waxa muxuu ahay waxa u laaban yahay waxa muxuu ahay ragga weeye wax u laaban yihiin war raggow sidaan isku laama raggow sidaan isku laama dalkiina iyo dadkiina muxuu ahay u tanasula waxa dhibaatada keenaya khilaafkana rag weeye dumarku ma jiro dumar waa mahadsan tihiin sidaan ku sii wada waxaan guul waad ogtihiin adinka maarta siyaasadda aad ugu jirtaan marka adinkana amaalkeeda waad helaysaan insha allah waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya cadowgeeda ha u midowdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad ayuu u baahsan yahay adeer cabdi xuseen waa saraakiishii ciidamada xoogga dalka waa wuxuu mudan yahay in la yiraahdo aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa inoo soo dhow barnaamijkii meelihiisii ugu quruxda badnaa fanaanadeenni xaawakiin waxaa ilaa hadda liilaa way soo socotaa waxaa jirta hees cusub calanka loo sameeyey alfanaankeenna axmed dhagax uu sameeyey waxaan ayadana jeclaan lahayn inuu sii diyaarsado sida aad la socotaan adeer cabdi xuseen wuxuu ka dhawaajiyey taariikhdii soomaaliya wuxuu soo hadal qaaday dowladda kenya dhibaatada ay hadda inagu heys sida inoo sheegana 1977kii markii dagaalkii la galayay wuxuu ku yidhi ciidamadeenna waa ay dhex mareen dhulka kenya kamana aysan hadli jirin maantana sida ay noola hadla waa aragteen marka waxaan aaminsanahay annaga kenya inaysan waxba naga qaadaynin haddii kenya dhibaatada ay nagu wadda ay sii waddana waxaan dowladda federaalka u sheegaynaa jaaliyadda reer manchester inay kenya ku filan tahay annagaa israacayno aadayna soo maa annagaa dalka difaacayna soo maa marka soomaaliya ha noolaato
soomaaliya ha israacdo iyo dhaxmartay calanka waan ugu mahadcelinaynaa sida aad la socotaan haddana waxaan jeclaan lahaa inaan halkan aan idinkaga sheego Umayatin Foundation inay halkan nala joogaan oo ah urur taageero ilmaha agoonta Soomaaliyeed waxa madax u ah Aamina Sheegow oo halka fadhisa cid allaale cidi wax rabta inay sadaqaysato ama agoonta wax tartana waa ay tagi karaan oo iska rajis garan karaan bidnillah kariim waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda badan leh sida quruxda badan loo soo labistay muujiyay maalmaha toddobaadka xurriyadda Soomaaliya ayaguna aad u maasan yihiin waxa jeclaan lahaa markii inaan u yeero
maxamed jeelaani oo halkan nala jooga ee ah gudoomiyaha ururka saska saska waa community-ga ku yaala Princess Road wax badan oo ummadda Soomaaliyeed u qabtaa dad badan buu caawiyaa marka waa oday soo shaqeeyay taariikh dheerna kula dalkii waxaan leeyahay ku soo dhawow kalmateen erayada ku habboon halkan inooga sheego bismillahir rahmanir rahim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaami inta ka soo qayb gashay xafladan oo qiimaha iyo qaayaha mudan intiina waa idin wada salaamay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rabaa in yar inaan maaragtay idinkaga warbixiyo taariikhda SYL halganka 13kii Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed ay u soo halgameen alxamdulilaahi rabbil caalamiin xornimada Soomaaliya ay u soo halgameen 1943 waxay ahayn 13ka ayaa u soo halgamay taariikh weyn iyo dhibaatooyin badan ayay maartay la soo mareen Allah u naxariisto inta dhammaantooda maanta dadka nool ma jiraan aniga laakiin taariikh ahaan markii calankan idinka maanta gacanta aad ku haysiin 1900 ayaa la taagay iyo 54 laguna gaarsiinayay xornimada Soomaaliyeed 6 sano kadibna waxaa waay xornimadii ayaan maartay Soomaali ayaa loo ogolaaday inay xornimadooda ay qaataan waqtigaas taariikh ahaan haddaan idin sheego waxaan ahaa ardadii iskuul Xamar Jajab laga soo kaxeeyay waxaan ku jiray 1954 sagaal jir baan ahaa dhalinyaradii waxbarata iskuul Xamar Jajab macallin jaamaca laga soo kaxeeyay calankaas maalinta la saarayay caruurtii oo mise dhalinyaradii wax ka saaray ayaan ku jiray taasaan rabaa inaan idin sheego 1960kii calanka markii la taagayna waxaan ku jiray 15 jiraan ahaa SYL xisbiga kaliya oo aan u dhaartay inaan u shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed ayaan ka mid ahaa 15 jiraan ahaa markaas alxamdulilaahi rabbil caalamiin xornimadii meel weyn baa laga gaaray Soomaalida waa isku duubneed Soomaalida min sharq ilaa qarbi intay markaas Soomaalida ka degneed min Ras Kiambon ilaa Ras Caseer Soomaaliya waa midoobeen markaas waxaana la raadinayay waqtigaas xornimada Soomaaliyeed in shanta Soomaali calankaas aad u jeediin waa shanta Soomaali ayaa loogu talagalay alxamdulilaahi ilaahay ma qadirin 26kii June 1960kii markii la qaatay oo lagu midoobay Soomaaliya marka hadda maanta aad u taqaaneen waqtigaas Somaliland laakiin waxay noqotay Soomaali weyn calanka la saaray 1960kii June 26kii koodii Luuliyana waa tii lagu midoobay calankii la soo qaaday midnimada Soomaaliyeed ayaa lagu midoobay waxaana loo halgamay inta kale Soomaaliya inay midowdo shanta kale waa tii Jabuuti aad ogeedeen xornimadii ay qaadatay alxamdulillah maanta Soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay midoobaan Soomaaliya inay mid noqoto Soomaaliya inay maaragtay ay ayatiinkeeda iyo cadowgeeda inay ogaato kaliya Soomaaliya maanta cadowga ma rabo Soomaaliya inay midoobaan Soomaaliya ma rabaan inay maaragtay ayaga waxay u arkaan inay dib ay ku tahay Soomaaliya haday midowdo laakiin Soomaaliya taas inay fahamto waaye dawladeena waxaan maaragtay mar walba ayaan maaragtay kula dardaarmeynaa inay raadiyaan midnimada Soomaaliyeed inay dib u heshiisiin maaragtay maxay raadaan la raadiyo taasaan anaga kula dardaarmeynaa dawladeena Soomaaliyeed si kasta waqti kasta nagu qaadato walaalaheena Soomaaliyeedna waxaan raadineynaa dhibaatooyinkii la soo maray iyo dhawaayintooyinkii loo geystay in maaragtay wada hadal maaragtay la isugu yimaado Soomaaliya Maxamed in maaragtay lagu wada midoobo إن شاء الله تعالى تاسن ورجينا تاسن ودردارنا إن شاء الله تعالى وأكم هذا سنتين إن شاء الله تعالى خيرا إذن رجينا سقول لما انتينا هذا يوم سيئة محمد جيلاني أن سيدا أدل سعطان وحالك نلجوغا أن تي في قرنك
ونقل جوجا أقاسمي تي في قرنك دلكن UK يوسف قربي وحلنا هذا وما سياي وحنا هالكن إنديه قبتي دتك تاريخ الصومالي سومرتي ما يرى أن ننعيلن كسومري ننأسواش ولا سو شقي هوين قدام كودي العقود ديبن وحنا هالك إيجا مغدا لجن لنا سبورتيجا أستامي قرنك الله سو قراعي تضباطهم كرسيداتكم قرامدو سبوحي جرن أحمد شيخو بشارة وحن جعلان لها إنا صعبكم وقلتها غيرتان وحن لها وحن سو جيدتي قيرادي عالنك كسووحو كسو كرو صوبرتي هذا يوم سيئي أن وحن إنو سو قلي مردو نلي جوغا أما قوبتا كسو حاضرة فناندين وينيد أن حاوكين هايدنا مركي هالكن سوشتاكتو وحن ديكو عسانا إنا صعبك وقلتها غيرتان أن وحن هالكا إيغا مقدسنا عيارتوي سومري كوحدي هرسد دادي يرد محمد كرتي محمد حسن وحن لا أسنو سو دو ان وحن جعلان لها مركا ويل ير او دليرة او داديسو آد وير تهي او سوماليدا هالكن لا جوغا انو ترين دونا تيح قبايا وحن جعلان لها انا دي لسو دويسان حسن محمد او هدي دقن كوري بكل بسن. السلام عليكم. مقعيقا وحسن محمد ما شوحي ما دمانتينا قبي تريو لكن انت انا قبي قتلون حجعلان لنا دهو همباليو سنة قردي كنتني سقالات congratulations ودني مدى الصوماليات وفي عنتها مانتي سيدا لسكوغوسو يميد او بلشدة دن مالكستي كي مادين مقالوين كالفوق يكو دوبو حتى انا وحجعلان لها انت انا قبي قتلينين انا تاريخ ذا ماشو كي يميد قبي انا انير حصو قبي واحد تري سيد محمد عبد الله حسن dadkiina badan waa taqaaniin sayid maxamed inuu ahaa ninkii u soo halgamay Soomaaliya waqooyigeeda iyo qaar ka mid ah Central Somalia iyo Ethiopia wuxuu la dagaaltamay waqtigaas adduunyada wadamadii ugu xoog badnaa Ingiriiska oo xataa India qabsaday Talyaaniga iyo Ethiopiaanka waqtigaas isku kaashanayay Kristaanimadooda iyo Soomaalida in xeebtooda la qabsado ninkan sayid maxamed cabdulla xasan dadka badankooda ma yaqaanaan siduu darwiishta u bilaaway asagoo runtii inkastuu ahaa dadkii aasaasay kaligiis muusan ahayn dadka badankood ma xusaan nin muhiim oo meesha ka tirsanaa sultaan nuur oo ahaa sultaanka guud qabiilka habaryoonis asaga ayaa markii ugu horeysay ka xanaaqay faransiiska oo ka furay berbera kaniisad oo ciyaalka soomaalida diinta laga saarayay markaasuu asaga shuyuukhdii meesha oo qaadiriyada ahaa buu isku keenay iyo sayid maxamed wuu u sheegay ayakuna waxay decide gareeyeen inay aasaasaan halganka darwiishta 1899 dagaalka ugu koobaad wuxuu bilaabmaday 1901 ingiriiskii iyo talyaanigii iyo Ethiopiaankii baa isku wada yimid ingiriiska ciidan wuxuu ka soo diray berbera Ethiopiaankan waxaa lagu dhahay galbeedka darwiishta xuduudooda oo bariga ayagu inay ka soo diraan ciidan ugu yaraan 15,000 gaariyo talyaanigana wuxuu haystay boqortooyada Majeertaan iyo Hoobiyay meelahaas oo ayakan waxaa lagu dhahay hadday geeskaas u cararaan ka qabta so dagaalkaas oo hadaa ka fikirtid awoodii ugu xoog badneyd iyo adduun iyo wadamo kale oo isku wada yimid dagaalkii ugu koobaad 1901 iyo 2 iyo 2 iyo 3 ilaa iyo 4 kulli maysan raynin ilaa iyo ingiriiska naftirkiisa iyo talyaaniga ay treaty la saxiixaan darwiishta waxaa mathalayay sultaan nuur iyo 3 nin oo kale sayid maxamed muusan tegin meeshaas saxiixaas waxaa la dhahaa treatygaas Pestalozzi agreement 1904 baa la saxiixay ilaa markaas ilaa 1913 dagaal dhan maysan dhicin ingiriiska dhulka gudaha uu ka baxay hawdka Somaliland qaybo ka mid ah Central Somalia iyo Ethiopia uu ka baxay berbere kaliba ku ekaaday hal wadan oo Afrika joogtay gaal iyo muslim iyo hal wadan oo Ingiriis oo adduunyada dhan joogay oo sidaas Ingiriiska kali u galay ma jiro anakuna waxa ku darsanay Talyaanigii iyo Ethiopiaankii baa karbaashkana yaani umaana hambeynin
soo gabaygan uu sayid maxamed tiriyey wuxuu qoray 1913 dagaalkii markuu bilaawmaday nin la dhaho Richard Cofield oo ahaa yani taliyaha guud ee ciidamada rukuubta oo Camel Corps-ka baa waxa yani lagu dhahay ilaali dhulka gudaha ah ana kuma tageena Ingiriiska uu xilsaaray Soomaali qabiilo ah way ku jireen iyo yani kuwa Afrikaan iyo kuwa Hindi ah ciidankaas waxaa lagu dhahay meesha un peace ilaaliya nabadda laakiin darwiishta dagaal hala bilaawin laakiin sida u dhacdaba 1913 dagaal baa si un u dhacay dagaalkaasna commanderka waxa ahaa Ismaaciil Mire dagaalka ka bacdi taleex marka lagu soo laabtay qalcadii oo magaalo madaxda darwiishta ahayd saldhigooda yani hogaamiyaha guud ee darwiishta Ismaaciil Mire wuxuu u tiriyay gabay dheer oo la dhaho anagoo taleexnaal yani gabaygaas wuxuu sheegay sidoo dagaalku u dhacay ilaa markay taleex magaalo madaxda ka baxeen sayidku sidoo u diyaariyay hubka sidoo u siiyay hilibka iyo cadka sida loo kala qaybiyay caanaha iyo geelka sida loo kala qaatay fardaha sida loo diyaariyay habeenkii meesha seexdeen siday Ingiriiska u daba socdeen dhowr bari ilaa ay la beegteen meesha dagaalka la rabeen siday u dagaaltameen siday u dileen iyo aakhirkii siday u dileen hogaamiyaha guud Richard Cofield and then gabaygan aniga tirin doono waa jawaabtii uu sayid maxamed siiyay Ismaaciil Mire markuu gabayga siiyay هذا gabayga bilaawi doona and then English baa ku tafsiiri doona adaa koofilow jiitayoon dunida joogayne adiga jidkii lagugu wadi jimic la'aaneede jahannama la geeyow haddaad aakhirow jihato nimankii jannow kacay warbay jirin inshallaye jamiicooyinkiiyo haddaad jawhartii aragto siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama dayntan iyo jeerkiidheh ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jaciyo baaruud dheh waxaynoo jaanjuunteenba waajibasha diineed dheh jigta weerar bay goor barqah nagu jitayendheh anigana jikrey ila heleen shalay jihaadkiidheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojendheh jiraayaday ila dhaceen jilic afkoodiidheh siday kugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu ku jarjaray jararka u muuji naf jacaylsigii baan ku iri jallow iga daadheh jaljaleecadii baa wadnaha jeeb ka soo ruqaydheh jeedalladii baa indhuhu kor ii jillaadmeendheh jimic kagama helin tuugmadan jeeriyey ruuxiidheh markaan juuqiraahdaba afkay iga jifayendheh dhaaxan jaleece dhagbaan jalaq la iisiindheh goortaan jareeraba gafoo nolol ka janqaaday sida jannanadii hore tashiguu igu jagugnaadheh talladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydheh jidaha xanuunka leh markii laygu jaraarshay jibaadkayga soo baxay dadkii jiifka qaban waadheh markay rubaddu jow tiri orbay igaag jiibshandheh jirkaygiina bahal baa cuno jiitay hilibkiidheh jurmidiyo baruurtii dhurwaa jugux ka siiyaadheh jiljiladiyo seedaha tukay igaga jaasendheh haddaan laysjikraarayn tolkay laga jidroonaadheh weligood waxaa lagu jaraa jilib dhigduulaandheh daraawiishi waa jibindhowgiyo jowga soo bixidheh
iyo aad ayuu u baahsan yahay xasan maxamed waa wiilka dhalinyarada ay arkaysaan dabcan waxaan u malaynayaa halkan inuu ku koray laakiinse in ilaa heerkan af Soomaali noocaan uu ku hadlo waliba uu ku gabiyo waalidkiisii waxaan leenahay aad iyo aad ayuu mahadsan tahay muxabbi xuseen waxaan leenahay maama aad u mahadsan tahay waa wax nabad quseeyo carruurtana inaan barno taariikhda iyo luqadda iyo dalka iyo dadka ay ka soo jeedaan maxamed aadan xasan maxamed aad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa barnaamijkeena inuu sidii noogu sii socdo waxa inoo soo socda barnaamijkii aan ugu talagalnay hiddaha iyo dhaqanka gabdhaha ay wiilasha sida quruxda badan loo soo labistay waxaan jeclaan lahayn marka inaad xoogaa indhihiinna iyo attentionkiinaba aad siisaan barnaamij aad u qurux badan ugu soo talagaleen ayagana waxay leenahay aad u mahadsan yihiin iyaga iyo waxaan idinkaga kiindhax bixi doonaa DJ Zak Mira
waxaan halkan ku soo dhaweynayaa fanaanadeena Xaawakiin waxaa kale nala jooga flaan all the way from Norway nooga yimid Yusuf Guule iyo Ali Huwa oo Norway nooga yimid ku soo dhawaada Xaawakiin hambaliyo waxaan leeyahay sidaan aad quruxdan badan aad ugu farxay markaan arkay aniga naftirkeyga mar walba waa jecelahay inaan dadkayga communitygayga saa u qurux badan oo gobolada kale intood ka qatarsan inaan arko waxaa idin qaadeynaa oo idinkuugu talagalnay horta heestii oo calanka kadibna heeso kaleento hees kale qaran iyadana iyo hees cusub oo brand new ah oo loogu talagalay kooda luudi iyo calanka Soomaaliyeed fanaanka dhinacayga jooga waa marti wuxuu nooga yimid Norway Ali Uba allaha fanaankeena kalena waa taqaaniin Yusuf Yare gudoomiyaha dhammaan waa u jeeda iyo gudoomiye ku xigeenada iyo wixii hawshan soo qaban qaabiyay dhanna waxa leeyahay vivo heesta waxaa loo sameeyay abwaan oro oo degan dalka Sweden waxaan rabaa wadani oo aan kaga qayb galo maalinta weyn ee munaasabada kooda luliyo heestan ayuu soo sameeyay kadibna ana la xameeyay
muusigan waxaan oo tumay maxamuud maxamed karaama
magaalo sikada la dhahay cameraman Yusuf Garabay waa xariiriseen agaasimaha telefishinka qaranka joog buu jeedinaan mogtahay ka sigta bugo waxaad ku leedahay
waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wala lama huraane agarligii wax ugu qabo wala lama huraane agarligii wax ugu qabo antiyay macaan waawiran hoy laga oraneelayo 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 hawadeeda dahabka tiilo deeqa daar wanaagsanantiyo cideeda dahabka alla tiilo deeqa لا يا وبحيرة وبيع سنار ورعدا ودعلنا حمدا ودعلنا صعب صعب هرقيسة يا دمشيدا عرب سيد شيديو بربردا ودعلنا ورمدا ودعلنا دالا يا وبحيدا دنيا دا سرار مدبدا ودعلنا القدودا ودعلنا hargeysa iyo damasheeda dibila idusheediyo xamada wadacallada muqdishada wadacallada alla danaha dhaqankeena damba same calankeena dugsi laga bartaa
إلهي بالي بدمنا صومالي بالي بكيني ناويان كنت الحيس معانا دنيا نقشوا وعانا كديرو وبحارك كديرو قبشي أبوركا يهلو قديرو ركزتو كراتنا دوني له أبارسلو لأخلق مواني لقى مواني كديرو وبحارك كديرو قبشي أبوركا يهلو قديرو ركزتو كراتنا دوني له أبارسلو لأخلق مواني لقى مواني يا حيو بيداوا دورو بلدوين مركز داود علدا داود علدا جنك داود علدا داود علدا يا حيو بيداوا دورو بلدوين البور داود علدا داود علدا قدر داود علدا داود علدا وبيدا دردريا كنتما يا بيا جوهر داود علدا داود علدا يا داود علدا داود علدا وبيدا دردريا كنتما يا بيا داود علدا داود علدا باهر داود علدا داود علدا اسمع يا داود علدا داود علدا بلعب داود علدا داود علدا عبود وقت داود علدا داود علدا سنة داود علدا داود علدا حمر داود علدا داود علدا مقدش داود علدا داود علدا حمر داود علدا داود علدا نالقع يا داود علدا زقا وبصدي أن يوسف كربي هذه هذا يضمع سنتاي وتلفزيون قرنكا هذه هورنا القرب تاجن وحلنا قابتها نلعب بالاريو فنانين توين لا جوجان سيف عرب باشا لدونا وحين الله سيسي كذو في آيات دويلورين أول ما لنفتي مركن كهويلي في آيات دويلورين أول ما لنفتي مركن كهويلي صباحي أنيقو أتعبرا نعودي سود قلي سكين وأقريو أغلقيو إفكاوغا صباحي أنيقو أتعبرا نعودي سود قلي سكين وأقريو أغلقيو inanku adeego cadowka ilaasho ayaha taliya axad kuugu maraya aqligaygu ninkastaka ordeka abaaldhacee adoosiga la jira soo
samaata aqligaygo ilmadka mari karo aqoon yare bulshadana ugeedo Iga haba ya digo
haddana waxaan noo hadli doonaa insha Allah taala kariim oo kelmado sharaf leh iyo xasuusin wadaninimo aan dhigi doonaan maamooyinka qaaliga maama Sharaf Aamina Baraawe maama Iisha Umar Saciid Saara Soomaali Sokora waxaan wada salaameynaa maanta xafladda weyn isugu yimid markii ugu horeysay aan imid runtii meesha dumar le wada joogay ragii intay ka baxeen aan dhahay laakiin hadda niyaddu waa noo dhisantay waa u jeednaa soo dhawaada idin leeyahay maadaama Aamina Baraawe la yirina igamani warramini igamani iwalay warramini loo bare waa wada salaam walaalayaal
waxaan rabaa wax yar inaan ka iraaha meesha tan runtii xafladdii calan saarkii Soomaali xurnimadii Soomaali aan ka xorownay gumaysigii Ingiriiska aan dhahna markuu horeysay 26 Juun gobolada waqooyi iyo 1 Luulyo isku darsankii iyo gobolada koonfureed Talyaaniga ka xorownay wax badan waa la sheegay wax weyn ma dhahay wax badan ku dari maayo adeer Cabdi Xuseen runtii taariikhdii uu ka hadlay dadkii kale wiilkii yaraayo ma sha Allah isna wuxuu ka hadlay sayidkii wax weyn ku dari maayo laakiin waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey calankan buluuga waa loo soo dhintay in xornimada la qaato waa loo soo dhintay dad baa dhiigoodii u huray dhalinyaray ahaayeen hadda waxaan leeyahay dhalinyarada halkay ka baxday hadday halkay la aaday waxay idin sheegayaan caadifad yayna qaadin wadanka maalintii la qaybsaday Afrika 1884 ilaa 85 Berlin conference markuu dhacay Afrika oo dhan la qaybsaday Afrika maalintaas Soomaali Talyaani wixii Ingiriis ahaa qaatay Portugiiska ku jiro wadamadii Afrika waa la qaybsaday 60kii badankeen Afrika daanahay xornimadan qaadanay maanta waxaan u dabaaldegaynaa 59 sano kadib please halkeen joognaa caadifadiyayna qaadan aan xisaabtanno dadkii u dhintay maanta Allah u naxariisto inaan u oyno waay maanta halkeen joognaa laakiin aan xisaabtanno Afrika waa ugu dambayna runta hadda isu sheegayno Kenya iyo Ethiopia daraskana la aan fiirino meeshay gaareen marka Soomaaliya waxaan idin leeyahay ha laga dhaqaaqo meesha qabiilkan iyo waxyaabahan iyo uqdadan ugu jirto iyo dad jecelsiga iyo inaan danaysiga gaar ahaaneed inaan iska dayno danta guud dadkii dhintay u soo dhintayaan ceebaynin yaynan meeshaan ku noqonin gumaysiga wali waa taagan yahay new colonization baa jiro haddii aad u malaysay inuu dhaqaaqay ma dhaqaaqin wali waa nala joogaa marka Soomaaliya waxaan leeyahay horta taas dhinacaas uga baxay mid labaad qurba joogta haddaanu nahay caruurteena waa inaan taariikhda Soomaaliya lala socodsiiyaa maxaa la soo maray they don't know anything ee ka yaqaan maanta waa la qudbeynay qaarkood maba aysan fahmayninba macna ma aysan fahmin marka waxaa la jecel yahay waxaa idin leeyahay ninba wuxuu yiri nin kasta oday Soomaaliyeed oo dhintayba waa hal maktabad oo gubatay because wax laga qoray ma jirto hal maktabad oo gubatay oo taariikhdii Soomaaliya gubatay noqonaysa marka waxaan rabnaa insha Allah taala in lagu dadaalo in hatta ilmiha Soomaaliga horta inaan ku dadaalno haddaysan taariikhda Soomaaliyana aabba iyo hooyooyin gurigaan joognaa waan naqaanaa dhalinyarada hadda meeshaan hooyo aabba ku noqotayna waxaan jecelnahay internetyada inay raadiyaan taariikhdii Soomaaliya iyo dhibaatooyinkii loo soo maray annaga gumaysigii ka hor waa jiri jirnay boqortooyaa jiri jirtay maamulka ka dhaxeeya dawlad ma aynaan ahayn laakiin dawlado yar yar baa jiri jiray haddii awdal haddaan ka soo qaadna boqortooyadii awdal ay jirtay Zaylac boqortooyo ayaa jirtay tiima jarteeni waa jirtay koonfur galadiyaa jiray oo koonfur dhayd boqortooyadii Biimaalka jirtay oo jibisa Talyaanigii taariikhooyinkaas oo dhan in la qoro waaye oo dadkii caruurta Soomaaliyeed loo sheego markaan isbaraarujino walaalayaal oo soo dhawaada damaashaadkii meesha nooga socdo ورحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مد الصومالية ماشي اسكب كل جن وادي السلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن إذن ترنا جرارير ولي هذا صومالي بانا هاي. صومالي بانا هاي مصر السافيان هاي الساعدات ديو يوعلى تصيانا صمد يدويان صومالي بانا هاي ما كان سكسابيو هذا الله إذا الصحة صوت كيغا أو هنا سعد بانو شيغا صومالي بانا هاي سنانيا من مشعل سنانيا من مشعل مرتدان أسمى فله إن أن سمر لوغو سوريا يمويه سعطة قريب كأ ولقي كما نصيحا صومالي بانا هاي لو صحيح القبنمو لكن صوبان يشرب ربي يكون سعيد وصريح صومالي بانا هاي صدح بانو دقنا سو جيرين كجيليو لودا سمد وينيو لودا سبق بدنيو اريغو iga qabo bakar qaybta la sama soo jireenka geeliyo ariga magacanta ariga sangaha fardahana noo dheer Soomaali baanahay sama lagu yaqaano soodin darisan leenahay siri jaar sokeeya
Soomaali baanahay Soomaali baanahay saymaha colaadeen soo majeesta geesiya surunku uu maro laga sasaanahay ruuxii lagu sufeeyana sankaan ka tolnaa waa maasantihiin haddana waxaan idin dhiibayaa yaasmiin oo kalmateen ka waran doonta halkan السلام عليكم كومونيتيga aadka u quruxda badan ee maanta Manchester isugu soo baxay aad iyo aad baad u mahadsantihiin contributekiini weeyaan waxa maanta aad caruurtiini banaanka ugu soo baxdeen idinkaana iska leh inaad free ku cabtaan insha Allah inta iyo in ka badan baan laga rabaa sanadka dambe anigu taariikhdii ka hadli maayo waa laga hadlay waxaan kaloo idin xasuusinayaa in raashin uu yaalo miisaska oo dhan wali inta ilowdeen xasuusiya baa la yidhi raashin baa wali miisaska yaala in la gataan rabaa taariikhdii iyo wixii laga soo sheegay calanka waa la soo sheegay halkan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa community-ga oo dhan siday u dhan yihiin qof gaar ahaan uga mahad celinayo sababtoo dad gaar ahaan baa soo abaabulay oo ku daba dhintay oo waqtigooda u huray runtii idinkuna qarashkii baa bixiseen marka dad badan way maqan yihiin bal hala isku soo noqdo waxaan israacinaynaa barnaamijkii gabagabadiisii haatan waxaan idin ugu dhiibi doonaa oo kalmateen meeshan ku habboon ka dhihi doona faarax ku soo dhawow adoo soo koobaya daqiiqadaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii qabanqaabada soo sameeyey guddiga qabanqaabada oo isugu keenay halkan iyagoo hawl weyn oo muhiima inoo qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkaa waxaynu isugu nimi waa wax weyn waa wax aan la iibsan karayn weyn wax gooyaa ma jiraan waa priceless baa leedahay gaaladu waxa aan la iibsan karin maalmahan aynu leenahay ee aynu isugu nimi waxaa loo soo maray taariikh dheer oo buug laga qoray haddii allaba kuu roon yahay waxaa la soo maray xilli dhibaato badan loo soo maray in aynu noqonno waddan nation dad adduunyada ka mid ah waxaan filayaa in dhibaata ay ugu dhacday Soomaali haddaynu nahay in aynu soo marnay dib fara badan aad u fara badan waa wax adduunyadu soo marto dhibaatooyinka civil warka dhibaatooyinka dadka ka dhex dhaca waa wax adduunyada ka soo dhaca weeye ma aha wax keligan inagu dhacay waxaanse idinku bishaareeyayaa insha allahu waqtigan aynu ku jirno inaynu gebagabadii marayno dhibkii aynu soo marnay inaynu dib uga sheekayn doonno wixii aynu soo marnay wanaag badanna uu inoo bilaamayo haddaan dib ugu yar noqdo taariikhdii aynu lahayn ee dahabiga ahayd haddaan ka xuso magaalada muqdisho oo kale muqdisho waa magaalo la odhan karo qarniyo iyo sannado badan bay soo jirtay xilli badan bay soo jirtay bilmadkal markaan tusaale idinka siiyo ninkii la odhan jiray ibnu batuuta markuu tegey waxbuu ka qoray wuxuu sheegay meeshaas inay tahay meel adduunyadu isku aragtay waxaan idiin sheegayaa Soomaali haddaad tihiin dad taariikh sare leh oo qiimo weyn ku fadhiyaa tihiin marnaba ha quusanina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa magacayga waa Sahra Soomaali meeshaan joogno waa meeshii xalfadda ay ka dhaceeday ee Manchester waxaa la yiraahdaa ma aragtay Alexandria Park marka aad iyo aad maanta halkaan aan iskugu nimaanay waxaan u dabaaldegaynaa waa 1 Luulyo aad iyo aad si fiican ayay u dhacday marka dadka waa u jeedin ka soo wada qayb galay caruur waayeel ma aragtay any age
marka alxamdulilah aad iyo aad ilaahay mahad u sugnaatay iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay aad iyo aad ayaan maaragtay u wada faraxnay soomaalida waa dad wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kalena sidaan ka sii weyn inaan u qabanno marka waxaan u mahad celinayaa mahad ilaaha iska leh telefishinka qaranka marka waxaan leeyahay way noo soo safreen arrin maaragtay waxay nala qaateen waqti badan marka aad iyo aad ha jiro oo ha joogo بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan mahad gaar uga jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida kaga nool yihiin waa toddobaadkii xurriyadda ummadda Soomaaliyeed hadii aan la 16 June 1 Luulyo iyo 17 June oo iyaduna ah maalin weyn ee dalka Djibouti walaalaha Djibouti waxaan mahad gaar u celinayaa guddigii iyo qabanqaabadii xafladda reer Great Manchester waxaan leeyahay howl aad u ballaaran qabateen waad ku mahadsantihiin waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay waxaan deeqda Soomaalinimo waxaan deeqda wadajir iyo wanaag nin walba ama shakhsi walba oo Soomaaliya naf ku jirtana maanta isaga u baahan inuu dalku u shaqeeyo in lagu shaqeeyo adigu dalku wax ku intifaacdi marka waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ha israacdo sanadkiisana insha Allah khair assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dadweynaha meeshaan ka soo qayb galay oo dhan Great Manchester see u dhayihiin waxaan halkan uga mahad celinaynaa dadka Manchester ku nool inta badan intii ka geysatay xoog iyo xoolaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa maalintii xorriyadda 1 Luulyo waa aad iyo aad bay u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Great Manchester waxaan tahniyad u gudbinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba tahniyadda sayta 1 Luulyo iyo 26 June maalintii ay midoobeen koonfur iyo waqooyi aad iyo aad waxaan mahad ugu celinayaa gaar ahaan TV-ga qaranka STN TV aad iyo aad madax oo mahad ugu celinaya sababtoo ah kaalintii ay ka qaaday barnaamijkan iyo dadkii aan soo diyaarinay annaga aan ka mid tahay iyo Dr. Cadaaye Shiino iyo dacaane oo ahaa dhankii oo wariyay ahaa oo noo waday aad iyo aad aan ugu mahad celinaya inta ka soo qayb gashay oo degan Great Manchester aad iyo aad aan ugu mahad celinaya waxaan u sii gudbinayaa ummadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan meel kasta ay joogaan haddana waxaan rajaynaynaa magaalada Great Manchester inta ku nool in sanadkan sanad ka sii dambeeyo in si wanaagsan midkaan xaflad ka weyn in aan sameeyno dhammaan waad mahadsantihiin sida u dhantihiin ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxaan dhammaan u hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Manchester iyo Bolton ee ka soo qayb gashay xafladan maanta waxaan rabaa inaan ana yaro oraad oo duca ah oo dalkan u ducaynayo inaan ka ilaahdo xaqan daain Allah dalkayga hooyo mid deeq iyo darajo yeesha Allah ka yeel lagu dago duugoobin Allah ka yeel mid aan dumino dagaal ka dhicin Allah ka yeel lagu diirsado laga deyrinayn Allah ka yeel dildilaacino dahaba Allah ka yeel mid aan laga daalino la soo daawado Allah ka yeel duluucda diinteena weyn mid ku taagano توحيدك عندافين الله كيال آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مقعيق وآمنة مجدين جيد شضاركونا مقع دير شينو waxaan rabaa inaan halka ugu mahad celiyo marka koowaad dhammaan ummadda shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan reer Manchester xafladii 1 Luulyo ee ka soo qayb galeen sanad guuradii 59aad ilaah baa mahad iska leh mahad labaadna waxaan rabaa halkan inaan uga jeediyo TV-ga qaranka STN iyo walaalkeen Yuusuf Garabay oo markasta na soo dul istaago oo wanaagiisa nagu garab istaaga asagana aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhammaan Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa inay israacdo ay midowdo waxaan kaloo leeyahay insha Allah taala karim ilaahay dawladeena dawlad khayr qabta nooga dhigo dawladaha soo socdana kuwa khayr qaba Allah ka dhigo insha Allah wadankiina nabad iyo naxariis Allah siiyo ummadda nabadaan naas nuugal nabaday ku nastaa Allah siiyo intaan qalqiyo caawa u jeedaan ama maanta aad daawanaysaan waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo wadaniyaal oo wadanku u hiloobay waxaan rabnaa insha Allah taala karim inaan wadankeena nabad iyo barwaaqo baraaro ugu soo laabano insha Allah waana ku mahadsantiin dhamaantiin
وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا لكم كسلامية والشوينت الصوماليات دمان جريد مانشستر iyo gudaha Manchesterba sida xafladda maanta ay ugu dhacday Alexander Park oo maartay la soo qaban qaabiyay ee maartay ay soo galiyeen jildi weyn oo waxaan ku leeyahay lacag iyo hanti iyo maalba intaba la geliyay waxaan ugu mahad celinayaa sanadkan sanadkiisa inuu Ilaahay nabad iyo sacaado nagu gaarsiiyo Ilaahay idinkiis bulshooyinka Soomaaliyeed waa u mahad celinayaa Mr. Cadaay iyo Shiina Shadoor ياسمين عبد حسين iyo gudoomiyaha Manchester waxaan u mahad celinaynaa sida sharafta leh oo wanaag leh oo nadaafad leh oo maaragtay haddii Ilaahay ku roon yahay wax walba oo maaragtay dhaqdhaqaaq leh oo ummadda magaalada Manchester ay u qabtaan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaalkiina Axmed Cumar ku magac dheer Jookra Soomaali comedian. maanta waxaa sharaf noo hal ahaan Soomaali oo isku imaado oo wax dhahdo Soomaaliya tooso Soomaali ha noolaato. Soomaaliya waxaan nahay dadka oo adduunyada ugu nasiib badan waayo Soomaaliya Ilaaha naga dhigay buluug calan buluugo forever san ahaw buluug ma la naci karo buluug waa cir buluug waa bad waana waxaa mahad ugu celinaa telefisyoonka qaranka SNTV waxaa leeyahay thank you halaha waxaan ka qabateen ما شاء الله واني دتك وهذاك سو خرور مي هذاك مي توسنو هذاك كليسا ابدت سو دغا فسوماليا توسو سومالي هنولاتو الهي waxa ay tuso Soomaali hal gacan noqoto United Somali insha Allah.